أنا شبه لا ضاسة كمان كدب همر اللي يصاب الدري جبهة همر اللي يصاب الدري مركا شقدي أو أنا شقدي بجرا على يصابت أنا أدو كلي صابت مالي صابت عمر آدن محمد ومجلس أفجرشدو يحيى زكريا وحو كل شيء تولد علبان وكتر صندوق واجد قبل كبكول yaraantiisii ayaa ugu dambeysay dugsi quraanka mana xasuusto xitaa suurada iyo aayada uu kaga tagay juska labaad waba hadii ay labalabeentiisu sax tahay ila jus iyo yakasa dor jus kasa laba jus kasa Umar Aadan Maxamed oo magaciisa afgarashadu yahay Zakariya iyo Cabdulla Ahmed Muude oo magaciisa aqoonsiga argagixisadu yahay Cabdiwaxid ayaa 13 November sanadkii tagay si wada jir ah u dilay Allah oo naxariistay Cali Cabdulla Maxamed oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka laakiin dadaalka wiilasha aan muuqan ee suga amniga shacabka ayaa midna naafiyay kan karana isaga oo bad qaba ku soo wada siman labadaba gacmaha sharciga isagoo meel taagan oo jaad inay wax gadanay ma aqaan meel taagan mashquulsan afkiisna dhankaas iga jeeda يا جدال وقوم هذا يا أساسا بتقول رفت أبت جدال أقول كأني قارت رفت مسكان ميلان كبه هذه وأسوج يار كلا لب تكلم ما دواء كذب يار كلا لبها بقول رفت إيش أقول بكتي أساسا مركا كذب ونقف ما وابحني أسكبحني أتر حبض عنه قبله أبت يار كسائب حبض أقول هذا مركد أنا نسيت أيوة قبته بس ولا وايد يواسي واكذبت لما سيد هجرة كذبتي تالي كتر بدني أزكاينه أو لو كوب بدني لا بقف أنتاس إيدن نور لك ناسودي هني مقتة سيد أنا وقفته هني Muude waa reer baadiye aan aqoon dhaqanka magaalka laakiin loo soo xulay sida uu ugu dhaqri lahaa dadka muuqiisa qalafsan aniga waxaan nahay nin reer baadiye ah waxaan ku dhashay walweyn baladogle gadaasheed meel ah dhinacaas aan ku dhashay magaalada Muqdisho ma maajin uliin mamaanin waxaan u amaaday waxa uu ka sheekeynayaa sida ciidamada amniga ay u xaliyeen isku daygiisii baxsadka ahaa ee orodka mooyee aysan la jirin xirfadihii lagu yaqaan argagixisada gaar ahaan kuwooda gaadmada wax ku dila ay xambada isku dhaceen dhinaca u cararkii carray anay xambada dhowr xambada u dhacday laakiin waxaan ka tirsanayaa al-shabaab aniga magaalada ma aqoonina meel oo maxaa la beerar badan ku toos meesha orod ku gooy aniga oo cararaya dhowr xambada u dhacday midii uu dareed dabarka ay dhacdo nolosha ay dhaaf fadhiisatay tii ameer ugu dambeysay ilaa ay isbitaal ligay Umar waxa uu tababar ku soo qaatay ceel cadde oo ka tirsan Jubbaland 2014 Janaale Dano Mashalay Shalaambood Buufo number 60 number Konton Bariire Afgooye iyo Qoryoole ayuu ka qayb galay weerar gaadma ah oo argagixisadu geysatay hadalkiisa oo yar iyo sida uu ugu dhaga nugul yahay hadalka horjoogayaashiisa dulqaadarida dhageysiga dadka kale iyo ka jawaabid la'aanta weydiimaha ayuu arkeen maleeshiyada argagixisada inay tahay fursad xamar kaga banaan iga arkeen jooga dheer laakiin aan kor iyo koonfur kala aqoon Cabdulla Ahmed Muude ayaa al-shabaab ugu tagay ceel macallin cali oo degmada Walaweyn hoos tagtay 2018 laakiin isaga ayaa doortay in shaqo looga dhigo magaalka maadaama uu baadiyaha cimrigiisa la qaybsaday jabhadnimadana uu ka doortay inuu ku magaalo joog barto dilka dadka Soomaaliyeed labada xukun sano ayaa loo haystaa dilka Allah oo naxariistay Cabdullaahi Maxamed Hilowle oo ka tirsanaa ilaalada deegaanka iyo Cali Cabdulla Maxamed oo isna ahaa ciidamada difaaca dalka oo ay kala dileen October iyo November sanadkii tagay habraacyada baarista wargeynta maxkamadeed iyo dhageysiga kama dambaysta ah ayaa soo ilaatay bishan 10keedii sababta ay intaas u qaatay ayaana ahayd in qaybaha caafimaadka ciidamada ay la tacaalayeen caawimaadda mid kamid ah labada xukun sano oo dhaawac uu soo gaaro waagaas maanta ay ugu dambeyn maxkamadda go'aan ka soo saartay sida uu warfidiyaanada u sheegay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida marka ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ay arkayeen labada eedeysana oo xabad ku furaya marxuum Cali Cabdulla Maxamed sidaasna ay ku qabteen iyagoo ku hubaysan bastooladii ay dilka ku fuliyeen markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah
kow cadeymaha laga qoray maragga iyo qiraalada laga qoray labada eedaysane labo sawirrada labada marxuum iyo xaashiyaha dhakhtarka ee caddaynta dhimashada marxuumiinta kale ah cabdulaahi maxamed hilowle iyo cali cabdulle maxamed saddex bistooladii ay ku hubaysnaayeen labada eedaysane marka ay dhegaysatay maxkamaddu dooddii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow cumar aadan maxamed labo cabdulle axmed muudey ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta kale ah cabdulaahi maxamed hilowle iyo cali cabdulle maxamed ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan wabilaahi towfiiq cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho